السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadku meel ay joogaanba waxay aad uga cawdaan cudurrada iyo xanuunada aadna waxay u necab yihiin ama ay karhadaan dadka ay ku dhacaan cudurrada xunxun wayna iska fogayaan wayna ka fogaadaan inay booqdaan oo tagaan nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu ina baray duco aynu insha Allah ta'ala kaga badbaadayno cudurrada xunxun sida waxa weeye kansarka eediska waalida waxa weeye judaamka cudurrada xunxun noocay rabaan ha noqdaane waxa weeye nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu ina baray duco aynu hadii aynu akhrisano aynu kaga badbaadayno insha Allah ta'ala hadii ay ku soo gaadho faafi oo walaalaha kala gaarsi si uu khayrku faafo adigana ay khayr kugu noqoto حديث كان واحد صاري أبو داود من حديث أنس إلهي سبحانه وتعالى كره لهذا الصحابي قاس قيمها بدين وحوليه هاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم محورنشري اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام كعلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام محورنشري اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو كدو عيسان شري إله وحان كان مغنقليا عذر كبرس كليلاه عذر كبرس كواتقانان وحوي شركي أيو حوي على عضينيا أو مقال كرودتك عران وكوكر هذان بوكوية ليا جنون كانوا قرانيسان waxa weeye waa qofka oo waasha waali ilaahu waali baan ka magan galaya waana wax cudurrada xun buu kamid yahay waalidu oo qofka hadii uu waasho waad garanaysaan xaalkiisu noqonayo sidoo kale nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu ilaahay ka magan gali jiray cudurka ilaahay judaamku waxa weeye waa cudur waxa weeye timaha horta banaan ku dhigaya timihii markuu hadana dhaafo lafihi jirkii korkiisii ayuu hadana waxa weeye galaya oo lafihii uu soo saaraya waxa weeye kadibna dheecaan iyo malax iyo qashin wax dadku ay kaaga carraan oo qofku markaa gooni joog uu ka noqon meel cidl ah oo bulshada uusan soo dhaxgelin ayuu gaarsiinaya والجنون والجذام ومن سيء الأسقام نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي الله سبحانه وتعالى كم ينقل شري ضمان عذر هذا حنحن عذر هذا حنحن إله يجن بدكلي marka waxa raba qofka muslimka ah ee doonaya inuu caafimaad helo qofka doonaya in Ilaahay subhanahu wa ta'ala cudurrada xun ka badbaadiyo waa in ducada nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ina baray aynu ka faa'iideysano oo ku ducaysano xilli walbaba si Ilaahay subhanahu wa ta'ala cudurrada xun Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu badbaadiyo aan kugu celiyo allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judami wa min sayyi al-asqam allahumma inni أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أنكو علي مرلبا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام فافي أولا لها كلا جارسي توفيق الله نوافتي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته